Puntland ma dawlad kala mise waa maamul ka tirsan dawladda dhexe dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed Puntland iyadoo dawlad Soomaaliyeed jira ay ardaduna ka graduate jirtay jaamacadaha dhigan jireen marka yaana lagu buuq lagu furin shahaado xamar laga bixiyo mustaqbalkiina kuma xirna taas ay sheegaya waa su'aal ay dad badan isweydiinayaan balse aan muhiimad gaar ah la siinin Dani waa madaxweynaha Puntland mar waliba uu shir qabto waxa uu ku dhirag dhacsadaa dawladda dhexe taas oo uu shaqo ka dhigtay shahaado sideedaba waxaan fiicnaan lahayd in kastaan ka xumaa inaan halkoo kale ku sharxo waa aqoonsasho ardaygaasi inuu fasalkaas imtixaan u fariistay muddadaasna uu soo dhiganayay macno kale oo ay leedahay male waxaan la leeyahay shahaadada qaranka iyo wax ka jira ma jiraan haddaba waa kuma siyaasiga xanaaqsan siyaasiyiinta xanaaqsan waxay ka shaqeeyaan waa run mustaqbalka Soomaaliya danka malaha waxa u daran dantooda shakhsiga ah yaa u daran waxay ka hadlaan negative wax xun ayay ka hadlaan wax dadka qalbi jabinaya ka hadlaan waxay ka hadlaan dalkan waa burburay ma soo noqonayo madaxweyne Dani hadalkiisa ma cabsi gelin karaan nidaamka dawladda dhexe inta anagu aan joogno xukunka waxaan idin ballan qaadayaa inaan aqbali doonin in la cabsiyo inaan aqbali doonin dariiqa saxda ah nala ka leexiyo inaan aqbali doonin in la yiraahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridayna inta aan anagu madaxda nahay anigoo ku hadlaaya keyga iyo kan madaxweynaha waxaan idin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maadsantii dadka Soomaaliyeed yay haystaan dadka reer Puntland waa ay u muuqataa dadaal xumida Dani waxa uu ka burburiyay rajadii ay lahaayeen